بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم go-aanka dowladda Puntland garowe Maarso 2024 waxaa maanta ay taariikhdu tahay 13 bisha Maarso 2024 shir aan caadi ahayn ku yeeshay caasimadda garowe golaha xukuumadda dowladda Puntland shirka waxaa looga arinsaday tallaabada ay shalay oo ah 30kii Maarso 2024 ay golayaasha dowladda federaalka ah ku buriyeen dastuurkii lagu ansixiyay magaalada Muqdisho 2012 taa bedelkeedana si sharciga baalmarsan loogu meel mariyay dastuur cusub oo laga leeyahay dano gaar ah tallaabadaas oo ay dowladda Puntland hore marar badan uga digtay in haddii lagu tilaabsado ay wax u dhimayso midnimada dowlad-dhiska iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed dowladda Puntland waxay u aragtaa in go'aankii golayaasha federaalka ay shalay gaareen uu buriyay sharciyadii iyo heshiisyadii ilaalinaysay midnimada dalka ee ku dhisnayd hanaanka federaalka ah dowladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka ku meel gaarka kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo koorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka ku meel gaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo qodobka afraad ee dastuurka dowladda Puntland farqadiisa afraad xarfaha ba iyo ta kuwaas oo dhigaya dowladda Puntland waxaa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasimida ahaanshaha dowladda dhexe ee federaalka haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaab dhismeed dowladeed oo aan ka hooseyn nidaamka federaalka ah ayna daba heeraadaan deganaansho la'aanta iyo dagaalada ka aloosan qaybo kale ee Soomaaliya qodobka saddexaad sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wada tashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay garowe 17 Maarso 2020 qodobkiisa 10aad kaas oo lagu go'aamiyay in dowladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummadeeda ee dastuurka federaalka iyo Puntland uu ogol yahay kuna matasho shacabkeeda haddaba dowladda Puntland waxay gaartay go'aamadan dowladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay'adaha dowladda federaalka ah inta laga helayo hanaan dastuur dhameystiran oo Soomaali heshiis ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland qodobka afraad farqadiisa saddexaad dowladda Puntland waxay yeelanaysaa awood dowlad dhameystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiis ku tahay afti dadweynaha loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya cutubka qodobka koowaad farqada koowaad iyo labaad ee mabaadi'da aasaasiga ah oo u qoran sida tan waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar sidaa daraadeed Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu buriyay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyay haddaba Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu lumiyay sharciyadii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo qodobka afraad dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqaynna la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyay 1 Agoosto 2012 dowladda Puntland waxay si toos ah uga xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira danaheeda go'aankan golaha xukuumaddu meel mariyay waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dowladda Puntland wabillahi tawfiiq ما شاء الله إلا بان ديدي مجرو إلا بان كأمس مجرو لا بقول لا بيتوه أنا أقبل كأضيسي وأنا أنصح سدا درادة دستور في أفضل وأنصح ما شاء الله طبعا هذا شرفت له سيدي مركوربان وشجني ما أنت أضين ترواك الدون تهي سيد الشرق النقابة دستور كنا فرعيان أضينينا لبدا أقل واكال أضينيان waxaan ku hormaraynaa aqalka sare adduunyada waxa la yiraahdaa aqalka sare dad aqalka odayaasha loo yaqaan meelaha qaar kood maadaama odayaasha ugu waaweyn ay ka mid yihiin aqalka sare aan ku hormaraynaa
aqalka sare dhammaantiin iska diyaar garooba laakiin waxaan codsanaynaa senatarada aqalka sare inay diyaar garoobaan howlwadeennadana diyaar ha ii noqdeen howlwadeennada diyaar ha noqdeen senatarada sharafta leh afartii cutub oo sidii haddii guddiga soo jeediyeen intii guddiga soo jeediyeen laga reebay inta kale senatarada ogol gacanta ha u taagan si fiican ha loo tiriyo xildhibaanada sharafta leh gacantiin ha taagnaato dejiya inta diiday oo aqalka sare senatarada qofkii xildhibaan diiday hadduu jiro intii diiday okay yaa ka aamusay senatarada aqalka sare yaa ka aamusay maasha allah hal is dhegaysto senatarada iyo xildhibaanada kulli labada aqal si fiican ha loo dhegaysto walaalayaal natiijadii aan ku dhawaaqaynaa koorumka golaha aqalka sare 42 xildhibaan ayaa soo xaadirtay fadhida 42diiba waa ogolaadeen aqalka sare dhinaciis waa ansax dhinacoodii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed si fiican ha loo dhageysto buuqna ha la yareeyo 40 cutub oo laga reebay intii guddiga soo jeediyeen xildhibaanada golaha shacabka inta ogol gacanta ha taagan hal la tiriyo si fiican ha loo tiriyo waa badii idaa gidaal dhaxda ha la istaago dejiya yaa diiday xildhibaan diiday hadduu jiro si fiican ha loo fiiriyo yaa diiday okay yaa ka aamusay maasha allah xildhibaanada labada aqal aan isdhegaysan oo idinku aad u mahadsan koorumka xildhibaanada soo xaadiray ee fadhiga fadhiya ee golaha shacabka waa 212 xildhibaan xildhibaan diiday ma jiro xildhibaan ka aamusay ma jiro 212 lana aqbal ku odaysay waana ansax sidaa daraaddeed dastuurkii waa ansax maasha allah aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan siinaynaa guddigaan u yeeraynaa ha la dulqaato wax yar ha la isu dulqaato aad iyo aad u mahadsantihiin guddiga waxaan rabnaa inay ku soo dhowaadaan maadaama shaqadii ay ummadda Soomaaliyeed u soo qabteen golahoodii midalayna la aqbalay in maartay mahadcelin iyo wixii kale soo jeedinayay ku soo dhowaada